orodka maratoonka loo yaqaano ayaa ah 2.40 kilomitir. Haddaba magaalada Djibouti waxaa lagu qabtay tartanka barkii oo isagu ah masaafo dhan 21 kilomitir, taasoo ay ka soo qayb galeen orodyahano iyo wadamo culays ku leh orodka caalamka. orodkan oo lagu qabtay garoonka ciyaaraha ee Guleed Stadium ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dalka intooda badan oo hogaaminayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weheliso marwadiisa Marwa Khatra Xaaji Maxamuud Xayd, ra'iisul wasaaraha waddanka Djibouti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, saraakiil iyo xildhibaano. orodadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay xarunta cashuuraha ka caagan iyo wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee waddanka Djibouti. orodadan ayaa ciyaartoydu waxa ay soo mareen dariiqyo fara badan oo kala duwan oo ka tirsan magaaladan Djibouti. markii ay soo dhamaadeen orodaduna waxaa dhalinyaradii kala gashay kaalinta koowaad, kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad, halkaasi lagu guddoonsiiyey biladihii iyo koobabkii ay mudnaayeen. goobta waxaa saxaafadda kala hadlay ciyaaryahanadii guuleystay oo ugu horeeyay Maxamed Faarax oo Mawl loo yaqaano kuna ordayay magaca waddanka Britain, Bashiir Cabdi oo isna ku ordayay magaca waddanka Belgium, iyo Muumin Buux Cawaale oo ku ordayay magaca waddanka Djibouti. waa markii guursay noloshayda aan Afrika ka ordo, taasina nasiib wanaag waxay noqotay inaan Djibouti ka ordo. waxaas waa wax lagu faano, waa horumar gaadhnay. insha Allah adduunka wax la qaybsanaynaa, orodkan iyo orodo ka badanna way iman doonaan insha Allah. waxay East Africa Bank waxay noqotay shirkadii Soomaaliyeed ugu horeysay ee shirkadda Naygon cidna loo sheegin ag fadhiisata, macnaha ay ku fadhida lacag qalin iyo buug laguma soo koobi karo. tusaale u noqotay shirkadaha Soomaaliyeed oo dhan. marka waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed inay inspiration siiso oo horumar gaaraan. aad iyo aad ugu mahadcelinayaa East Africa Bank iyo oo ka mid ah Dabshil Group. dhinaca kale Maxamed Daahir oo ah madaxa suuqgeynta ee East African Bank oo iyaguna maalgeliyay orodyahanka Bashiir Cabdi ayaa isna goobta ka hadlay, waxaanu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim. haddana inagu maanta East Africa Bank aad ayaan faraxsanahay. farxadeeda lama soo koobi karo. waad ogtihiin orodkaasi caalamiga ee ka dhacay maanta ka qabsamay Jamhuuriyadda Djibouti oo ay ka soo qayb galeen dhammaan orodyahanada caalamkuba. waxa aan sponsor u noqonay Bashiir Cabdi oo wada taqaanaan nin dhalinyar oo u ordaa waddankaasi Belgium iyo shirkadda Nike. annaguna waxaan noqonay sponsorka labaad inaan noqono ayaan jeclaanay. waana arkaysaan kaalinta uu soo galay. tareenka ka muuqday garoonka ayaa dhalinyarada reer Djibouti waxay aad u dareynayeen in la joogteeyo ciyaaraha noocan oo kala ah, gaar ahaan orodada, si dhalinyarada laftooda ay fursada uga helaan. Ali Axmed Raabi, Ali Sanyo, Sab TV, Djibouti.